Canada lug ku gal baa la leeyahay isagoo wadanka Canada marka uu doonayo lug ku galana in ciidanka Canada halka ku toog kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo warbixin xiiso badan intayna aanu gudagelin warbixintaasi iyo xogtan kaga hadlayno ugu horeyn waxaan ku xasuusinayaa haddii aad tahay shakhsi cusub inaad ku soo dhawaato channelkeena oo subscribe saarto sidoo kalena aad gambaleelka furato si aad u noqoto shakhsiga horeeya ee daawado muuqaaladan halkan soo gelino muuqaalkan aad daawanaysidna aad like saarto si uu u baaho u gaadho saaxiibaad u tiro badan saacadii ugu dambeeyay waxa baraha bulshada qabsaday fanaanka caanka ah ee Sharma Boy oo la sheegay inuu qirinqiir ku jiro isla markaasina xabsi loo maleegayo oo la rabo in lagu xidho dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika haddaba muuqaalka aad ku soo wada aragteen fiidiyogan horaantiisii waa nin la sheegay inuu xogaal dhow yahay fanaanka caanka ah ee Sharma Boy isla markaasina uu og yahay xariga loo maleegay iyo gabi ahaanba xaaladda adag ee fanaanku uu ku sugan yahay fanaanka caanka ah ee Sharma Boy ayaa la sheegay inuu ku tagay fiisay wax ka qaldan yihiin dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika halkaas oo ciidamadaasina ay raadinayaan fanaanka ayaa haddaba la sheegay in aanu soo bixi karin isla markaasina uu dhuumasho ku jiro halkaasi oo dadka qaar kula taliyeen inuu safar luga ku galo dalkaasi Canada halkaasi Canada marka uu tagana uu dhib kala kulmi karo haddaba saacadii ugu dambeeyay waxa baraha bulshada qabsaday muuqaaladii uu ninkaasi soo duubay kaasi oo la sheegay inuu xogaal dhow yahay fanaanka caanka ah ee Sharma Boy oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika Sharma Boy ayaa la sheegay inuu ku tagay dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika fiisa ay wax ka khaldan yihiin isla markaasina aan step-ka uu ku socdo aanu mid sax ahayn haddaba waxa la sheegay fanaanka caanka ah ee Sharma Boy inuu isla waqti xaadirka qirinqiir ku jiro isla markaasina xaaladiisu cakiran tahay oo aanu dhannaba haba yaraatay u dhaqaaqi karin fanaanka ayaa la sheegay in lagu taliyay inuu gabi ahaanba ka baxsado dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika oo iska dhiiba Canada uu ku taga safar luga haddaba waxay ahayd hadalayntii ugu badnayd ee saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsatay waxaana ahayd mid aad loo wada dhibsaday isla markaasina ay dadku ka naxeen dadka ayaa khalad u fahmay muuqaalada aan ka soo diyaarinay fanaankani iyo shirqoolka loo maleegay taasi oo la sheegay in fanaanku xaalad adag uu ku sugan yahay dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika saacadii ugu dambeeyayna waxay ahayd mid baraha bulshada qabsatay fanaanka ayaa haddaba la sheegay inuu ku cakiran yahay dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika dhannaba aan uga bixi karin waxaana la sheegay in fanaanka lagu taliyay inuu lug kaga baxo dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika kaasi oo Canada lug ku tagayo haddaba fanaanka ayaa la sheegay in isla waqti xaadirkan ay xaaladiisu aad u adag tahay isla markaasina uu dhib kala kulmay dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika kadib markii uu ku tagay fiisa ay wax ka khaldan yihiin isla markaasina aanu sharcigiisu saxnayn fikirkaaga aragtidaada ku cabir qaybta hoose ee fariimaha ama commentiga kuna soo dhawow channelkeena Tabinta Toosan TV oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka furo si aad u noqoto shakhsiga ugu horeeya ee daawado muuqaaladan halkan soo gelino muuqaalkan aad daawanaysidna like saar si uu baaho u gaadho saaxiibaad u tiro badan ku maasanid kamid ahaanshaha iyo ku soo biritaankeena barteena